reerkii soo xulay iyo intii baadhiyada kale ee ku ayidayba in uu qaasin cali cabdiqaal uu yahay maanta laga bilaabo caaqil iyo oday dhaqan oo ka mid ah odayaasha dhaqanka beesha iyo deegaanka sidaa la sheegayna uma aha markaas reerkaas soo xulay keliye wuxuu u yahay deegaankao dhan buu u yahay aan ku soo gabagabaynayaa awalan marka hore waxaan salaamayaa guud ahaan marti sharafta ka soo qayb gashay xafladdan qiimaha badan ee lagu caano shubayo caaqilka cusub ilaahayna aan uga baryayno subxaana wa tacaala ugu ducaynayno inuu xilkaas ku asturo waxaan salaamayaa si gaara bahda dhaqanka jiif cuqaasha ama cuqaasha nin garboodka odayaasha halkan fadhiya maadaama madasha iyo godoshu ay tahay gogol dhaqan marka labaadna waxaan salaamayaa siyaasiyiintii maamulka s c oo runtii aan u kala maqnayn guddoomiyihii baarlamaanka iyo ku-xigeenkiisa oo inala jooga guddoomiyihii gobolka maayarkii degmada iyo ku-xigeenkiisa oo inala jooga maayaradii degmooyinka yagoori iyo adha caddeeye oo inala jooga taliyihii booliska rag odayaaloo miisaan ku leh maamulka oo maanta iyaguna halkan marti noogu ahaan runtii aada uga mahad celinayno imaanshahooda agaasimaha guud ama maareeyaha guud ee hay-adda gargaarka iyo masiibooyinka maamulka s c khaatimo doctor cali cige la taliyaha madaxweynaha dhinaca dhaqaalaha doctor wasiirkii hore ee cabdiraxmaan maxamed cabdi xaashi guddoomiyihii hore ee xuduudaha xuseen xaashi culamaa udiinkii oo sheekh anawalo hadda noo yimi iyo sheekh maxamuud iyo sheekh cabdinaasir iyo baaraka allahu fiikum ilaahay idin wada sharfo quruxda iyo qiimaha aad usoo yeesheen xafladda runtii aad baan idinkaga mahad celinaynaa intii hore aan la qabaa anigoo metelaya magaca isimada waxaan idinla qaadanay reerkii soo xulay iyo intii baadhiyada kale ee ku ayidayba in uu qaasin cali cabdiqaal uu yahay maanta laga bilaabo caaqil iyo oday dhaqan oo ka mid ah odayaasha dhaqanka beesha iyo deegaanka sidaa la sheegayna uma aha markaas reerkaas soo xulay keliye wuxuu u yahay deegaankao dhan buu u yahay in alle intuu gaadho reer fiqshinina meel walbuu ku metelaa cuqaasha kale markay maqan tahayna isagaa metelaya s c oo dhanna wuu metelaa oo caaqilnimada ugu metelaa isagana waxaan ilaahay uga baryaynaa subxaana wa tacaala hambalyo odhan mayno oo hawshan ninkii yaqaana kuma hambaliyeeyo waxaan leenahay ilaahay ha kugu asturo ayaan leenahay dadku markay bannaanka ka joogaan waxay u haystaan de waa runoo marka dhinac laga eego qofki waa la maamuusaya ixtiraam gaaru bulshada laga yaabaa inuu ku helo laakiin waa qof mataqaanaa dhuxulo dab ah loo dhibo gacanta ku haya sida in badan ay ka dhawaajiyeen waxa caado ah in lasoo dhiso madal la keeno hadhowtana cidda ugu horraysa ay ka hor timaada ay noqoto ciddii soo dhistay inay noqoto dhaqanka ama isim ha noqdo ama caaqil ha noqdo dabeecaddaas inaynu bedelno oo aynu la shaqayno waxyaalahan sida culimmadu ay sheegeen cuqaasha kale sheegeen waajibaadka uu leeyahay waa in la maqlo waa waajib in la maqlo oo la addeeco wixii aan shareecada islaamka iyo dhaqanka curfiga ah ee dadku isku waafaqsan yihiin aan ka hor imaanayn haddii ay fekerkaaga iyo fikraddiisu iska hor yimaadaan tiise ayaa waajiba in la qaato sababtii xilka loogu dhiibayba waa middaas in la xooleeyo ama lagu maamuuso inuu ka maarmo shaqadiisii iyo danihiisii maadaama hawshan loo lug xidhay iyadana waxa weeye waa arrin wanaagsan oo aada u fiican dadku waxay isweydiiyaan ama hadda markaan arkayay shacabka iyo cuqaasha colaad baa la dhex dhigay colaad baa ka dhexaysa colaaddaasi xilligay soo bilaabantay haddeer ma aha ingiriiska iyo gumaystuhu markuu inoo yimi dhaqankiibuu mushahar u qoray dhaqankii markuu mushahar u qorayna waxay noqotay dhaqankii inay ingiriiska waxa uu rabo ay u shaqeeyaan shacabkuna ma aysan rabin ingiriiska horta waa inaan ogaanaa colaadda halkaas ka soo bilaabanta nin waxaa iskale ciddii mushahar u qorata haddaba reer yahow haddaad rabtaan caaqilkiina ama isimkiinu idiin shaqeeyo dee waa inaad meel mushahar u qorataan meel fadhiisiisataan haddii kale cid kale u shaqaynaya maalintaasay colaadda dhaqanka iyo ka dhaxaysa iyo shacabka ay soo bilaabantay shacab xornimo raba doonaya inay madax bannaanaadaan cuqaashii iyo dhaqankii iyo isimadii inta xaggooda laga maray mushahar loo qoray maalintii uu ninku yidhahdo ha soo xidho iyo wixii la yidhahdo la sameeyo uu samayn jiray dowladihii ka dambeeyey nidaamyadii ka dambeeyna kaasay mareen anigu waxaan qabaa maamulkeena isi ha laga bilaabay cuqaashay wax mushahar ayaan loo qorin reer walba ha la yaabo soo idinku caaqil kamaydin dhagan soo idinku isim kamaydin dhigan idinku ku fillaada markaasuu idin mateli karaa
haddii kale de maamulku metelaya haddii shacabkii maamulka beriya waxay isku khilaafaan ama shacabku maamulka wax ka rabaan qofkii maamulka uga soo dhicin lahaa weeyaan isaga iyo waxa isla mid ah xubinta baarlamaanka ay soo doorteen shacabku marka horta arrintaa inaan fahanno oo aan gaadhsiino dhaqankeenna inay isku fillaadaan oo ay ka maarmaan in cid kale wax siiso waa laga maarmaan caaqilka iyo isimka iyadana masiibada kaloo dhacdayna waxay tahay gudoomiyaha baarlamaanka waa ka gudoomiyaha baarlamaanka hadda inoo sheegay oo qaasim waa run wuxuu ku jiray liiskii u horreeyay aan soo gudbinay 45 xubnood ee SSC dee halkana qadarnayd oo kolley hadda u malayn maayo inuu isagu raadinayay laakiin tana qornayd mar dhex oo gebagabadii la marayo dhaartii u dhiman tahay buu wuxuu yidhi war ma rabee bal cid kale ha igu bedelo dee wax wala qadar allay ku socdaan waxa xoogaa iswaafajin u baahan xubinta baarlamaanku dee waa xubin baarlamaan oo dhacaysa laakiin caaqilku dhici maayo isimku dhici maayo taasi waxay noo keentay mushkilo kale oo ah dadka dhaqanku inay u qaataan dadka inay iyagu leeyihiin maadaama mood mooye cid kale aysan bedelaynba qofka dhaqanka wuxuu haystaa dadkiiba inuu isagu leeyahay inaan lala xisaabtami karin dadkii soo doortay waxaa la rabaa isimka iyo caaqilkaba inay la xisaabtamaan hadduu istaahilo in la bedelana ha laga daayo dhaqanka la leeyahay weligeed yala meeshaan 500 sano ka hor taagna inaan taagnaano maaha isimka lama taaban karo iyo dhaqanka lama taaban karo ha laga daayo hadduu curfigii iyo shareecada iyo dhaqanka uu khilaafo ha laga taqalluso mid kale ha lagu bedesho innagu maxaan rabnaa qof inoo shaqeeya wax inoo qabtaan rabnaa qofku hadduu shaqayn waayo wax qaban waayo dee haddana mid kale aan ku bedelano taasaa waxay keentay marka lama bedeli maayo markii la yidhaahdo anigu inaan madaxa taago rabo dadku inay ii wada rukuucaan warkayga uu noqdo mataqaanaa lama dhaafaan salaanta haddii aniga laga bilaabi waayo aan mataqaanaa isxanaajiyo